waxaa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal soo gaadhay wafdi ballaadhan oo hogaaminayo gudoomiyaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland Maxamed Baaruud Cali isla markaasina ay qayb ka yihiin agaasimaha guud ee komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland Cabdisamed Saad Xasan iyo Cumar Maxamed Xuseen oo ah xubin ka tirsan komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee Soomaaliland mas'uuliyiinta ka socda komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland ayaa ujeedada socdaalkoodu ahayd sidii xariga uga jari lahaayeen xafiiska komishankaas ku yeelan doono magaalada Boorama munaasabad loo qabtay xariga jarka xafiiskaasi oo ka dhacday barxadda hore ee xafiiska komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland uu ku leeyahay gobolka Awdal ayaa waxa goobjoog ka ah maamulka gobolka Awdal qaar ka mid ah suudayaasha kala duwan ee laamaha dawladda taliyaha qaybta booliska taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kala duwan oo markaasi ka socday bulshada rayidka ugu horeyn waxa halkaasi ka dhacay markaasina munaasabadaasi furay Cabdisamed Saad Xasan oo agaasimaha guud ee komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland waxuna yiri ka soo qaybgalka maanta xafladan inuu ka soo qayb galay oo ah furitaanka xafiiska komishanka xuquuqul insaanka qaranku uu ku yeelan doono gobolka Awdal magaalada Boorame xafiiskaas oo runtii komishanka xuquuqul insaanka qaranku uu yahay hay'ad qaran oo kamid ah hay'adaha madaxa bannaan ee uu qaranku leeyahay sidoo kale intii munaasabadaasi socotay ayaa waxaa halkaasi kaalay mas'uuliyiin kala duwan oo ka soo qayb galay munaasabada xariga jarka xafiiska komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland uu ku yeelan doono gobolka Awdal waxna yiraahdeen laakiin waxaan isfaraynaa in xafiiska lala shaqeeyo xafiiska xuquuqul insaanka gobolka u baahnaa way wax xuquuqdana xasuusiyo horta u baahnay annagana xuquuqdeeda noo doona marka xuquuqaha iyo kuwa kale oo qofku xaq u leeyahay in la ilaaliyo aad bay muhiim u tahay xafiiska ilaalin la xuquuqda hadina loo soo magacaabay gudoomiyaha dad ma san tahay xuquuqul insaanka hay'adda xuquuqul insaanka qaranka qaybtiisii laantiisa gobolka Awdal runtiina waa mid loo baahnaa aad waliba xabsi ahaan iyo asluub ahaan aad bay noqotay aad baan la shaqeynaynaa dhammaan noocyada kala duwan ee ciidamadu waxaan aad u soo dhaweynaynaa komishanka xuquuqul insaanka iyadoo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu diinteena munazalka noogu sheegay xaqa uu bini aadamku leeyahay ama basharkuba waxaan filaynaa inuu xafiiskan sideeda u hawlgalo aan xafiis ahaan la shaqeyn doono aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay in hadaan nahay civil society-ga aanu afkoodi ku hadlaya ururada rayidka ah runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in xafiiskan gobolka laga furo marka aad baan u soo dhaweynaynaa xafiiskan xuquuqul insaanka gobolka hadaan nahay hay'adaha qadaa garsoorka waan la shaqeyn doonaa waana la shaqeynaa waxa kale oo isagna halkaasi ka hadlay Cumar Maxamed Xuseen oo ah xubin ka tirsan komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland Maxamed Baaruud Cali waxana hadaladoodii kamid ahaa runtii sharaf bay noo tahay maanta inaanu goobtan ka furno xafiiskii komishanku xuquuqul insaanka Soomaaliland ee uu ka furinay gobolka Awdal sida uu xeerku xusayo dhammaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan inuu komishanku ku yeesho xarumo anagoo tii ka duulayna wuxuu nasiib u helay gobolka Awdal inuu noqdo maanta gobolkii ugu horeeyay maxay ahayd marka Hargeysa laga reebo gobolada kale inuu xafiisku ugu horeeyaan maanta ka furno xuquuqul insaanka dadku dawada garanayaan diinteena oo sheegtay dastuurkeena uu sheegaya mararka ugu muhiimsan laakiin dadku ay gafaan waxa weeyaan imka intayna halkan isugu timi wax laga yaabaa qof waliba uu garanaya halku xaqiisa u marayo halku ashkatoonayo uu garanaya halku kale u marayo lawyer buu qabsanaya uu garanaya oo haystaa laga yaabaa lacagta ku qabsanaya lawyerka xildhibaan buu doonanayo xildhibaankii aan doortayo waxaas iga maqan boornaya wasiirkiisii buu la hadli karay oranaya waxaas iga maqanay laakiin xuquuqul insaanku runtii dadka la doonayo inuu u hadla waa dadka aan garanayn ilaa maanta halka xuquuqdooda u marayaan iyo cidda u doonanayaan iyo cidda xuquuqdooda kaga maqan tahay waa dadka jilicsan waa dadka aan cod ka lahayn in cod loo sameeyo Maxamed Xasan Ismaashad Beere wararka telefishinka Sahan magaalada Boorama